آذن جمعالي كوفي أقاسمها قودي هيئة سعودالك جنسيتها حكومة فدرالك الصومالية يوفد وقامنا يوم مالميه وقدم بكسقنا مقالة كيغالي عاصمة دالك رواندا أيا مانتا بوغدي قرونك ديارadaha مقالة كيغالي waxaana mid loo tusay qalabka iyo mishiinada yaala ee laboorka iyo qaabka ay u shaqeeyaan koofi oo socdaalka ay ku weheliyaan saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka ayaa dalka Rwanda uga qayb galaya tababar ku saabsan ilaalinta xuduudaha iyo arrimaha socdaalka maxamed aadan jimcaale koofi agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa inta ay ku sugan yihiin dalka Rwanda waxay booqan doonaan xuduudda u dhaxaysa dalka Rwanda iyo Uganda halkaas oo lagu soo tusi doono sida uu shaqeeyaan saraakiisha ka howlgasha arrimaha xuduudaha dalkaasi taliyaha hoggaanka jinsiyadaha iyo socdaalka ayaa saxaafadda u sheegay in dalka Rwanda ay u tageen sidii uu soo arki lahaayeen qaabka uu soo kabsaday dalkan maadaama dalka Rwanda uu ka mid yahay dalalka soo kabsanayo oo in badan burbur uu ku jiray maanta waxaan joognaa magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda magaalo aad u qurxoon ah waxaan halkan u joognaa inaan ku qaadano tababar la xiriira dhinaca socdaalka inagoo ka kooban saraakiisha shaqooyinka ugu muhiimsan hay'adda oo isugu jira agaasinada laamaha hay'addu ay ku leedahay maamul goboleedyada iyo aniga oo ah agaasikii guud oo sidoo kale ka qayb qaadan doona booqashadan waxbarashada ah waxaan ku dooranay inaan soo booqano dalka Rwanda waa dal sideenoo kaleeto mar burburay oo hay'adihiisa oo dhan ay burbureen oo ay ku jirto hay'adda socdaalka iyo u qaabilsan jinsiyadda muddo kooban kadibna dib dhammaan u soo dhistay hay'adahoodii iyagoo aan ku tiirsaneen gacan shisheeye